كنترولكي لاسعنود حق قلبيتك ciidamadii xaquudirirka SSC Khaatuma ayaa jooga aadna waa u mahadsan yihiin Ilaahay baa mahadle ragga difaaca iyo ku jiray difaaca wadankana aad bay u mahadsan yihiin intaas hadda ku soo gaaray Jabuuti Soomaaliland waxaan leeyahay dadku waa dadkaagii dad rooga joogan waxaan leeyahay iska soo baxabada $100 ku dhimanine inaad moogtahay waxaan iska joojisaan inuma wanaagsan Soomaaliland iyo Puntland waxbay noo qaban mayso rahmatullahi wa barakaatu shacabka reer Laascaanood waan bogaaminayaa sida ay iskaga celiyeen sida iskaga celiyeen sanamta dhigicabka ee dadka baaranaysa sida iskaga celiyeen aad baan u bogaadinaynaa haddaan nahay dadka reer gobolka Awdal waa taageersanahay iska celiyaan laayso ninkii u dambeeyay dhibanayo iska celiya iyaga inagu soo doontay dhulkiina iyo dalkiina inagu soo doontay iyaga inagu nima soo doonin iyagayna soo doonto inagu soo doontay maxay gobolkiini iyo dhulkiini marka iska celiyaan waan baleynaa waxaan leeyahay dadka reer Laascaanood ee dagaalada ku socdaan inkuna nabad maxay heedayaan wiil baa ku dhashay ee wiil koorto waxaad sameeysan xaaladda dajiya madaxweynaha Jabuuti Soomaaliland waxaan leeyahay dadku waa dadkaagii dad meel laga kala tagayo ma aha maxay heeday hal dajiya xaalka saasaan aragti ahaan aan leeyahay noortu waxaan leeyahay xaalka Laascaanood ka taagan nabad baa aan macaan dagaalna wiilku ma dhashay wiil baa ku dhintay moogta qori caaladina wax lagu maxalliyo waxa lagu xalliyo waa nabad iyo wada tash moogtahay marka reer Laascaanood ragga dhulbaanti waxay leeyihiin wadankayga nooga baxa deegaankayga din marka wal hadal sameeyno musabixii madaxweynaha qaranka Soomaaliland waxa leenahay madaxweyne dagaal wax lagu maxalliyo wax lagu nabad wax lagu xalliyaa nabadaasina waxa weeji waa inaad ciidanka ka soo saartaa gobolka wixii inta ka dambeeyna ma taqaana xal ama ma taqaana wax solution la keenaa taas nabad ku imanaysaa lays ciidanku ku sii jiraan nin wax noqonaysa la caburinayo wax caburin ma jirto wax cid baraksha lagu qaada ma jirto adduunyada ma taqaana qarniga koolatanaad ku jirnaa ciid ma caburiso marka waxaan leeyahay nin baad xoolihiisii aad ku dilaysaa ciidanka ka soo saar marka ciidanka ka soo saartaan nabada ay marka ma taqaana ala gudagalo xaaladda ka taagan gobolka Sool waxaan leeyahay raggaasi xaq bay ku taagan yihiin shuba waan leeyahay waxaad fahmi weydaan in xaq darreed ku soo doonto ragga dagaalamayna waxaan leeyahay bartiina ka sii wada ilaa ugu dambeeyo dhimanayo kuwa magaalada ka joogan rarayna oo leenahay xataa orda taga dalkiisa u dagaalantaan maanta baxayaan maanta waxaan leenahay sida u socotaan maadaama aad xaqiinii weydeen waad saxantihiin annana waxa laga yaabaa inaan anaguna maruun aan fiista ka shana taajarka bismillaahir rahmaanir rahiim bariyahan dambe horta waxaan joogaa degmada Boorama bariyahan dambe waxay xaalada aad u baahan ay ka abuurmeen degmada Laascaanood oo aad loogu hoobtay guud ahaanba madaxda Soomaaliland waxaan u diranaa arintaas inay si xilkasnimo leh oo aqli leh ay arinkaas ma taqaanaa uga hadlaan xalkuna wuxuu ku jiraa ciidanka inay horta kala soo baxaan meesha haddii ay ciidanka kala soo bixi waayaan adduunkan haddii qasab ka jiro caalamka gebigiisa nabad noqon lahaa laakiin wax qasab la yiraahdo adduunyada kama jiro horta marka waxaad marka koobaad ku dadaashaan inaad ciidanka meesha kala soo baxdaan markaad kala soo baxdaan kadib wada hadalku bilaabmo haddii aad tiraadaan xoog baanu isticmaalanaa baashu intii aad garanayseen way dhaaftay horta meelo kale laga doondooni marka waxaan leenahay haddaan degmada gobolka Awdal haddaan nahay gaar ahaan degmadiisa Boorama nabad baan ku baaqanaa horta dad Soomaaliya oo walaalaheena iyaa ku dhimanaya dad moogtahay nin aanu nila midaan walaalkiin baan ahay haba saataan waxaan ilaahay inaad moogtahay waxaan iska joojisaan inuma wanaagsan Soomaaliland iyo Puntland waxbay noo qaban mayso